السلام عليكم. كسو دوادا كلية ستار كولج. مقعيقو أستاذ مصطفى. عشركة مركا وحنقون دونا عشركة أنقو شرحيو وحي تيريا. هدي أن تقنو هردعا أفصومالي بكوكوري أداسك آخر السنة. هدي أن تقنو introduction to the computer. halkan waxay noogu jira qeexidiisii waa maxay computer iyo qaybaha computerka. Computerku waa electronic device, waa qalab dab ku shaqeeya kaasoo aqbala in uu wax process gareeyo, input process, in wax lagu qoro oo wax uu process gareeyo oo wax la geliyo ama xog la kaydsado gudihiisa ama isaga and produce oo soo saaro output natiijo inuu wixii lagu kaydiyay marka dambe aad u baahan tahay uu ku soo celiyo output uu ku siiyo. qaybaha computerka haddaan eegno amba components of computer system haddaan eegno waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waaweyn. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa hardware. Hardware-kuna waa physical element of computer system. qaybaha inoo muuqda ee computerku uu isticmaalo ayaa waxaa loo yaqaanaa hardware. waa qaybta aad arki karto taaban karta ee computerka. maxaa kamid ah mouse-ka waad arki kartaa waa taaban kartaa, waa hardware. keyboard-ka waad arki kartaa waa taaban kartaa, screen-ka iyo CPU-guna waa la mid, waad arki kartaa waa taaban kartaa. kuwaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa hardware. waa shuruudiisu waxa weeye inaad taaban karto, arkina karto. sawiradiisuna waa kuwan, waan ku soo laaban doonaana. qaybta labaad in u gudbaynaa waa software. software waa program. haddaad maqasho markaa software, program, app iyo application intaas waa isku macno. marka software waa maxay? software waa programo computerku isticmaalo dadkaasoo tel u sheega computerka muxuu u sheegayaa what to do, maxaa la qabanayaa and how to do iyo sida loo qabanayaa. waa qaybta aynu arki karno laakiin aynan taaban karin. waa qaybaha aynu computerka ku shubno ama mobilka aad ku shubtay loo yaqaano abiska. qaybta computerka lagu shubaa waa software, waad arki kartaa mobilkaad ka arkaysaa ama screenkaad ka arkaysaa computerka laakiin ma taaban kartid. kuwaas waxaa loo yaqaanaa software. maxaa kamid ah software-adan dhammaantood isticmaalna kamid ah Word-ku kamid yahay, uu kamid yahay Excel-ku, Access-ku. waxaa kamid ah software mobilada aan ku isticmaalno social media, Facebook, Twitter, waxyaabahaas oo dhan waa maxay? waa software computerka lagu duubayo. halkan waxay nagu soo noqday hardware-ka. laba qaybood baa loo qaybinayaa, input device iyo output device baa hardware-ka loo qaybinayaa. waxaa jirta qayb kamid ah computerka gudihiisa oo loo yaqaano process. processkuna waa qaybta loo yaqaano CPU-ga. waa qaybta maskaxda computerka ah. waa qaybta fariimaha iyo actionska iyo ficilada iyo awaamirta iyo amarada kala dirta ee ugu muhiimsan computerka. waxaa loo yaqaanaa CPU, waxaana loo soo gaabiyey Central Process Unit. CPU-ga waxaa la shaqeeya waxaa loo yaqaano Arithmetical Logic Unit oo loo soo gaabiyo ALU. kan wuxuu si toos ah ula shaqeeyaa CPU-ga sababtoo ah kan ayaa ah ka calculation-ka iyo xisaabaadka iyo software markaad dalbato eed mar labaad mid kala doorato eed mid saddexaad soo saarto sida loo kala horreysiinayo, sida loo kala xisaabinayo, sida loo gelinayo maxaan ku rahdayay CPU-ga loogu kala horreysiinayo si CPU-gu u kala hago, si uu CPU-gu uu kugu soo saaro natiijadii waxaad u baahnayd. waxaa hagaya oo la caawinaya Arithmetic Logical Unit. arithmetic markaad maqasho xisaabaadkii baad xasuusanaysaa. marka waa qaybta wax xisaabisa ee la shaqeysa maskaxda, ee la shaqeysa CPU-ga. haddaynu hardware-kii fahanay inuu laba u qaybinay hardware-kii input device iyo output device haddaynu qaybinay waxaan ku noqonaynaa sawirkii aynu soo dhaafnay. marka muuqaalkan haddaad eegto, sawirka haddaad eegto, dhammaan qaybaha halkan ku jira waa hardware. waxay u qaybsamayaan input device iyo output device. in magaca ka muuqato waa wax gudaha meel la gelinayo, gudaha la gelinayo. outna waa wax la soo saarayo. marka waa qalabka kuwa ogolaada inaad computerka wax geliso iyo kuwa kaa saacidan in computerka wax laga soo saaro. tusaale ahaan waxa ugu fiican oo aynu ku qeexi karnaa ama aynu tusaale ka dhigan karnaa inputka keyboard-ka. keyboard-ku waa input device sababtoo ah waxaa loogu talagalay in xog computerka lagu kaydsado iyo kaa saacidaya keyboardka kaa saacidaya.
marka shay kasta oo computerka wuxuu ku gelinaya waxa loo yaqaanaa input device. Waxa kamid ah mouse-ka, waxa kamid ah oo input device mouse-ka, keyboard-ka labadaas waa kamid. wax kasta oo kuu sahlaya marka inaad computerka xog geliso waa input device. output device waxaa loo yaqaanaa kuwa kuu saacidaya in computerkii wax laga soo saaro, sida muraayada. muraayadu waxayna tustaa waxa computerka gudihiisa ku kaydsan, sida ogeed waa input waa output device. okay speakerku muxuu noqonayaa? speakerka oo ah samaacada muxuu noqonayaa? speakerku muxuu sameeyaa sidiisaba? cod buu ina siinayaa, cod buu dibadda u soo saarayaa. sida ogeed ma input ba oo computerka wuxuu kuu gelinaya cod mise cod buu kuu soo saarayaa? cod buu soo saarayaa. sida ogeed wuxuu noqonayaa output device. printerkan ama noocan ha ahaado ama noocan ha ahaado ama koobiga waaweyn ha ahaadee nooca doona ha ahaadee koobigu muxuu noqonayaa? waa mid kasta wax lagu daabacaa. warqad buu inoo soo saaraya waa output device. microphone-kan muxuu noqonayaa? dhagahaad gashanaysaa, cod baad dhegeysanaysaa, muxuu noqonayaa? output device buu noqonayaa, cod buu kusoo saaraya. sidoo kale waxaa dhici karta inaad recording ku samaynayso, sida ninka anigu waan isticmaalayo oo cod aan ku duubayo. marka uu codka kuu gelinayo computerka muxuu noqonayaa? input device. marka uu kusoo saarayna output device. taa waxaa la macno ah shayada qaarkood waxay noqonayaan input iyo output, laba shaqo isku qabanaya. kamardan oo kale waa kamarda lagu xidhay computerka desktopka, sawir bay kaa qaadaysaa, computerkay gelinaysaa. waa maxay? waa input device. live haddii aad ku jirto sawirkaaga kaa qaadaysaa, computerkay gelinaysaa, qofka kale sawirkiisii bay soo qaadaysaa, aday kusoo gudbinaysaa. haddaad kamarda iska xidhi lahayd qof kale ma ku arki lahaa? maya. marka maxay macnaheedu samaynaysaa? macnaheedu maxay tahay? labadiiba way u dhaqmaysaa, input iyo output. marka shayada qaar baa inputna noqda, outputna noqda. laakiin guud ahaan deviceska waxaa loo qaybiyaa hardware-ka input iyo output. intaana inaad ila fahantay ayaan rajaynayaa. waxaan u gudbayaa software-ka. software-kana laba qaybood baynu qaybinaynaa. qaybta koowaad oo loo yaqaano system software iyo qaybta labaad oo loo yaqaano application software. system software sida ka muuqata systemku waxaa la yidhaha qaybtan hoose ee computerka, intan hoosta la dhigo desktopka tusaale ahaan oo kale. qayb waa muraayad, qaybna waa qaybtan hoose ee dhulka la dhigo. qaybtaas waxaa loo yaqaanaa system. CPU baa loo yaqaanaa, case baa loo yaqaanaa, magacyo badan bay leedahay. marka system software waa softwareada uu systemku u baahan yahay ama computerku u baahan yahay. waa programmada daadkaasi oo computer cannot start or run la-aantood uunu shaqayn karin ama aanu shidmi karin ama uunu waxba qaban karin. softwareadaas waxaa loo yaqaanaa system software. is a type of computer program. waa nooc ka mid ah computer programmada kaasi oo designed loogu talagalay to run inuu ka shaqaysiiyo computeris hardware. qaybihii buu ka shaqaysiinaya hardware-ka aynu arkaynay ayuu ka shaqaysiinaya. mouse-ka ayaa ka shaqaysiinaya ee fahansiinaya computerka in dhinaca loo dhaqaaqay, in maxaa ahaayeen la taabto buttonka bidixda la taabto, in la qaaday wax yaa fahansiinaya. system software-ka fahansiinaya. dhammaan hardware-ka oo dhan yaa computerka wax fahansiiya iyo hardware-ka wax fahansiiya. system software-ka ayuu wax fahansiiya. sidoo kale wuxuu wax fahansiiyaa oo ka shaqaysiiyaa oo loogu talagalay qaybaha loo yaqaano application programmeska oo ah qaybahan intaan arki doono. system software marka wuxuu ka qabanayaa waxa horta loogu talagalay oo loo design gareeyay inuu ka shaqaysiiyo hardware-ka computerka iyo application programmeska. application programku waa maxay? halkan ayaa laynagu sheegayaa. application programku waa programmada loogu talagalay needed by the human ama loogu talagalay dadka. waa kuwa inaga aan isticmaalno ay humanku isticmaalaan baa loo yaqaanaa application software. waa kuwa computerka ku shubno ama laptopka mobilkan ku shubano loo yaqaanaa application software. waa nooc oo doonaha ahaadee waa nooc ka mid ah programmada ama wuxuu noqon karaa dhowr nooc oo programmo isku tegay kuwaasoo loogu talagalay end userka. end userkuna waa maxay?
oo qofka isticmaalaya yani adiga si kale haddaan u sharaxo system software waa softwarada uu u baahan yahay hardware sidoo kale waa softwarada ka shaqaysiiya ama softwareka ka shaqaysiinaya application programka application softwarekuna wuxuu noqonayaa kuwa inagu aan u baahanahay tusaale simbari calculatorka yaa wax ku xisaabiyo yaa u baahan inaga u baahan wordkan aynu wax lagu qorayo excelka wax lagu xisaabinayo yaa u baahan inaga u baahan kuwa unu computerku ama mobilku unu u baahnayn aynu inaga u baahanahay aynu la soo degno aynu googleka ama play storeka tagno aynu kala soo degno ayaa waxaa loo yaqaanaa system application software kuwan kale ee computerka la-aantood unu shaqayn karaynin eed maqasho la yidhaahdo softwarekii oo computerkiiba la format garanaya ama mobilkiiba software ka baxo softwareka lagu shubaya kuwaasa waxaa loo yaqaanaa system software waxa kale ka mid noqon kara system softwareka kuwa computerka ama mobilka saacidaya tusaale ahaan antiviruska kale antiviruska kale wuxuu noqonayaa yuu saacidaya yuu viruska ka ilaalinaya system softwareka ayuu saacidaya marka labada qaybood baa loo qaybiyaa softwarekiina softwareka ugu muhiimsan ee computerku ku shaqeeya ugu muhiimsan waxaa loo yaqaanaa windows daaqad maaha imiga windows waa softwareka ugu muhiimsan ee computerka ka shaqaysiinaya windows waa maxay is a collection of programs waa programo la qoray oo la isku soo ururiyay oo programmers ay qoreen kuwaas oo loo yaqaano operating system windowsku waa programo la qoray oo loo yaqaano operating system OS operating system windowsku waa operating system waa softwareka ugu muhiimsan ee computerka ku jira la-aantiina uu shaqayn karin waxa uu controlaa CPU-ga ama personal computerka ayuu controlaa oo ka shaqaysiiya markii ugu horeysana waxaa la soo saaray 1985 waxaana soo saartay shirkadda loo yaqaano Microsoft ee uu leeyahay ninka loo yaqaano Bill Gates Windows-ka waanu garanay marka waana casharada ugu horeeya ee computerka marka aynu dhiganayno aynu dhiganay ama aynu dhigan doono halkee laga eegaa Windows-ka ama softwareka si aynu u eegno halka ma tagaynaa waxaan ku dhufanaynaa this PC markaan ku dhufano waxaa noo soo bixi doona computerka waa iska yar culus yahay waxbaan ku dhigaa waxbaan ku duubaa markaa iska cuslaaday right click dheh property-ga tag kaa dul istaag ama desktop-ka yaallo ama halkan ba ka raadiyo property-ga tag waxaanu eegaynaa nooca Windows-ka ee ku jira xog badan buu ina siinayaa laakiin nooca Windows-ka ee ku jira si aan u ogaano halkan ayaanu eegaynaa Windows specification ayaynu eegaynaa nooca Windows-ka ee ku jira waa maxay Windows 10 Professional version-kiisuna nooca yahay waqtigii laga duubay nooca yahay license-ka ama product license-kiisuna waa expire date-kiisa ama waxyaabaha weeyaan marka Windows-ka computerka ku jira noocan ay noqonayaan Windows 10 Professional ama Windows 8 ama Windows 7 ama Windows 11 buu noqonayaa waxa laga yaabaa in habkan maaha habab kala duwan oo adiga computerka ku tuso waxay ku xiran tahay nooca computerka ama softwareka aad isticmaalayso imiga aniga qaabkan ayuu ii tusayaa laga yaabaa qaab ka duwan oo ka fiican inuu adiga ku tuso laakiin waxaad raadinaysaa waa maxay meesha ay ku qoran tahay Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise buu noqon karaa noocyo kala duwan bay noqon karaan tankaasuma ay ka sinaanayaan ama tankii laftigiisa way ku kala duwanaan karaan oo wuxuu noqon karaa 7 ama 8 ama 11 oo ah kii ugu dambeeyay sidaasaa loo eegaa computerka aad isticmaalayso nooca uu yahay operating systemkiisu waa Windows 10 imiga isla fahanay aan iska xidho aan ku soo noqdo waa maxay muhiimadda uu leeyahay Windows-ku uu leeyahay computerka iyo isticmaalkiisu halkan shantan qodob aynu eegaynaa Windows-ku wuxuu u sahlaa userka wuxuu u sahlaa userka to interact with the computer inuu computerka la xiriiro inuu computerka isticmaalo intuu computerka dhex galo oo waxyaabo ka bedelo oo wax qaado wax delete gareeyo wax masaxo yaa u ogolaanaya Windows-ka inaad keyboardka wax ku isticmaasho
adigoo keyboardka maraya ama mouseka ama microphone adoo kuwa maraya oo usii maraya computerka si aad u isticmaasho ayaad interact ama interaction la sameynaysaa ama dhexgal aad la sameynaysaa. wuxuu ku controlayaa storage of data meelaha wax ku kaydinayso iyo dhammaan storage-kaaga iyo dhan faylasha iyo waxyaabihii oo aad isticmaalayso dhan ay ku kaydinayaa oo si sahlan uu kuugu kaydinaya ama si sahlan kuugu sahlaya inaad isticmaasho sida sawirada faylasha muusiga waxyaabahaas oo dhan. wuxuu controlaa hardware-ka oo uu ku controlaa computerka. tusaale si aad wax u web cameras-ka saad u isticmaasho saad u scan garayso wax si aad wax u printer garayso waxaasoo dhan waa hardware-kan yaa controlaya hardware-ka ku attach garaysan ee ku yaalla ku dhegan ama aad ku xidhaso computerka yaa controlaya Windows-ka ayaa controlaya. wuxuu kaa caawinayaa si aad u furto ama aad u xidho programmada computerka ku jira nooca doona ha ahaado ama photo ama gallery ama game ama wuxuu doona ha ahaado. wuxuuna computerka wuxuuna siinayaa computer memory-ga qaybta loo yaqaano memory-ga ayuu waxa uu siinayaa space ama qayb uu ku maamulo dhammaan shaqooyinka socda oo dhan waayo waxa wax maamula ee wax hagaajiya ee shayada aad dooratay kala horreysiinaya waa memory-ga computerka maskaxda yar ee computer ku jirta ee memory-ga u ah ayaa gelinaysa oo shay kasta ku soo saaraysa shaygana waa uu maamulaa si uu shaqadii u kala horreysiiyo. markaad shay ku dhufato aad ku labaad ku dhufato aad ku saddexaad ku dhufato kii ugu horreeyay waa in lagu soo process gareeyo shaqada waxa qabanaya memory-gana ayaa hagaya oo awaamirta siinaya Windows-ka ayaa hagaya. wuxuu controlaa waxa computerka lagu isticmaalayo. wuxuu controlaa userska kala duwan iyo permissionskooda iyo yani roleska ay computerka ku leeyihiin computer security-ga ama roleska computerka ku qaadanayaan. waxa uu maamulayaa yaa waxaan arki karaa yaa computerka isticmaali kara password kala duwan baad ku xidhaa user kala duwan baad samaysaa. waxa kale ku ilaalinaya security-giisa inaan cidi ka jabsanin inaan cidi soo weerarin waxyaabaha noocaasiya inaad sida loogu talagalay aad u isticmaasho waxyaabahaas oo dhan buu ku ilaalinayaa Windows-ku shanta qodob ee waaweyn. saddexda software ee ugu muhiimsan ama saddexda operating system ee caalamka oo dhan jira ee ugu muhiimsan waxaa loo yaqaanaa Microsoft Windows oo ah kan aynu ka hadlayno kan aynu baranayno kan aniga computerka igu duuban kan adigu aad computerka kuugu duubaneed isticmaalayso aynu baranayno. shayga labaad ama operating systemka labaad ee ugu muhiimsan waa Microsoft waxa weeyaan Mac operating system OS Mac operating system ayaa loo soo gaabiyay isaguna waa qayb ka mid ah operating systemada oo wuxuu u dhigmaa Windows-ka. qaybta saddexaadna waxaa loo yaqaanaa Linux. labadanba inta badan waa commercial yani waa waxyaabo la iibiyo. Linux-ko kale tusaale ahaan waa kuwo aad iyo aad u muhiim ah sidoo kale viruskuna ma galo hadduu Linux computerkaasi ama operating systemkaasi Linux ku jiro ma galo. Windows-ku inta badan virusku waa galaa waa crash garoobaa waa wax dee commercial la iibinayo oo laga ganacsanayo sida ugu wax kastoo laga ganacsanayo virus yaa kala waxyaabo badan baa ku dhaca waqtigiisa dhamaada sidee mar labaad looga iibiyo haddii shaygii weligii uu isbedelaynin dee ma uu soo galan commercial-ka. laakiin Linux-ko kale waa iska free inta badan waxaana Linux-ka lagu isticmaalaa inta badan computerada waaweyn ee computerada kale kusii xidhan yihiin shirkadaha waaweyn baa isticmaalaa si personal loo isticmaali kartaa isaga oo kooban oo loogu talagalay computerka in lagu shubo. haddaynu kasoo gudubno waynu eegno noocyada iyo marxaladihii Windows-ka uu soo maray history-giisa haddaynu soo eegno noocii ugu horreeyay halkan ayaad ku aragtaa 2001 Windows XP baa la odhan jiray 2001
xilligadii socon jireen waxay ahayd 1985 iyo 94 ilaa hadda waa la helaa oo la isticmaalaa meelo badan oo wadankeena ka tirsan iyo caalamkaba waa la isticmaalaa laakiin magaciisa waxaa loo yaqaanaa Windows XP 2001 ayaa loo yaqaanaa noocii ka dambeeyay waxaa loo yaqaanay Windows Vista 2006 ayaa uu aad loo isticmaali jiray oo soo baxay laakiin hadda lama isticmaalo wixii xilliga ka dambeeyay lama isticmaalo Vista waa shayga kaliya ama waa operating system kaliya ee ay Microsoft soo saartay muddo la isticmaalay ee la joojiyay waayo qaladaad badan iyo wuxuu yeeshay cilado fara badan buu yeeshay marka Vista weligaan kuma isticmaalin arkimeysna meel lagu isticmaalay Windows 7 2009 ayuu soo baxay 2009 Microsoft Windows 7 oo waqtigiisu ahaa 2009 okay isaguna waa uu ku dhadhow yahay noocyadii hore saad aragto waa la icon waa la sumad xilliyadaas isagana la soo saaray laakiin waa softwareka ugu qaalisan ama ugu fiican softwarada la isticmaalo xataa 8 iyo 10 waxyaabo badan buu kaga fiican yahay inkastoo waqti hore u ahaa haddana ardayda jaamacadaha gaar ahaan engineering oo kale aad bay u jecel yihiin waayo softwarada markaad ku shubaso engineering loo isticmaalo inta badan ma diido 7 marka inta badan waa la isticmaalaa meelo badan baa laga isticmaalaa waa wax aad muhiim ah Windows 8 oo xilligii uu la shaaciyay la soo saarayna uu ahaa 2002 alifkii waa isna kuwa ugu muhiimsan ee ilaa imiga aadka loo isticmaalo ee boqolkiiba in ka badan 50 ama 60 aadka loo isticmaalo weeyaan Windows 8 sumadiisuna waa aynka waxaad arkaysaa in ka ay isku mid yihiin oo isku dhadhow yihiin anigu waan idin tusay noocan isticmaalay Windows 10 weeyaan laakiin inay isku dhadhow yihiin baad u jeedaa Windows 10 oo ah kan imigaan idin tusay computerkayga igu duuban 2015 baa la verify gareeyay waana isku dhadhow yihiin wax qooga kooban bay isticmaalkooda ku kala duwan yihiin laakiin dhammaantood kan ilaa iyo kan dhammaantood shaqada ay qabanayaan waa maxay inay computerka ka saacidaan hardwareka in uu la xiriiro inuu computerkii la xiriiro hardwarekii oo la shaqeeyo ay dhammaantood ku saacidayaan waxa kale ku saacidayaan inaad computerkaaga aad waxyaabo badan aad ka qabsan karto xog ku kaydsan karto shantii shay imigan ka soo waraminay ayaa ay ku qabanayaan dhammaantood waa isku wada mid marka Windowska markaanu baranayno oo ah qaybta koowaad ee barashada Windowska loo yaqaano Windows waa in aad isticmaali kartaa markaad ka barato XP waan isticmaali kartaa 7 waan isticmaali kartaa 8 waan isticmaali kartaa 15 kan waan isticmaali kartaa ama 10 kan waan isticmaali kartaa 11 ka oo kan imika hadda soo baxay waan isticmaali kartaa waayo dhammaantood waa isku wada dhadhow yihiin shay aad meel ku taqaanin uma meel kale la geeyay ama sumada hadduu markii hore ahaa sumadii ma laga bedelay sumada laga dhigay waxyaabo yar kale oo muhiim ah waa lagu soo daray laakiin muhiimadda mar walba lagama tago intaas haddaynu ku soo qaadano hordhaca ama aynu ku gabagabayno wixii theory ahaa ee hordhaca ahaa ee nagu talagalnay in halkan aan ku duubo halkaas ayuu gaga egyahay intaynu casharkiisa labaad waynu ku soo gabagabayn doonaa isagana wax alla waxa theory wax alla waxa practical ah ee Windowska khuseeya ee buugeenan inoogu jira ay ka mid yihiin qaybahan oo dhan ayaan doonayaa inaan dul maro my computer this PC my document set waxyaabahan oo dhan baan doonayaa inaan hal muuqaal ka sameeyo sawgeed casharkan wuxuu hordhac u ahaa qaybta labaad ee aan soo duubi doono intaan casharka ku xiga isku iman doono sayo wassalaamu calaykum